jamhadda ugu horeysay oo Soomaaliya laga asaasay waxa ahayd jamhadda SDF haddaan isku dayo ma garan karo sanadkaas ma garan karo walaalay ururka wax u maleyn inuu ahaa kulmis laakiin haddeer waqtigii 1977kii bay ahayd waalmay taa ma sheegi karo maadsanta wacan daawadayaal ku soo dhawaada warbaahinta Dalmar Media iyo barnaamijka su'aalaha garaadka dadweynaha ee Dalmar Media waa barnaamijka aad nooga barateen toddobaad walba toddobaadkan waxaan ku qaadan doonaa laba weydiimood aan weydiin doono dadweynaha ku nool magaalada Garowe haddaba nala socdo daawadayaal barnaamijkan waxa idin la socodsiinaya anigoo Anastaa Cabdullaahi Xaashin Astaxin Dhadeerele waxaana ii duubay Cabdiqani Cawaale la socod wanaagsan walaal ku soo dhawo warbaahinta Dalmar Media iyo barnaamijka su'aalaha garaadka dadweynaha ee Dalmar Media walaal waan dhawahay waa mahadsantahay magacaaga noogu bilaabaya walaal magacaygu waa Caamir Murtimaal soo aragtaa inaan su'aal ku weydiino walaal caadi way waa soo dhaweynayaa waxaan ku weydiinaynaa waxaad noo sheegtaa jabhaddii ugu horeysay ee Soomaaliya ka asaasantay magaceeda iyo xilligii la asaasay jamhadda ugu horeysay oo Soomaaliya laga asaasay waxa ahayd jamhadda SDF haddaan isku dayo lana asaasay 1983 taariikhda ma iga hubtaa 83 runtii wallaahi si caadi uma garanayo laakiin waa filayaa inay meelaha ahayd taariikh ahaan inay meelaha ahayd baan filayaa maadsantahay saas kugu dayday soo dhawo su'aasha garaadka dadweynaha Dalmar Media waa ku soo dhawahay walaal anigoo Cabdibaas Abdiraxmaan Shaadali magacaaga noogu bilaabaya Cabdibaas Abdiraxmaan Shaadali soo aragtaa su'aal ku weydiino waxba kama qabo haddaan ka jawaabi karo ka jawaabaya waxaan noo sheegtaa Siyaad Barre ururka midowga Afrika goorma gudoomiye ka noqda ma noo sheegi karaa waqtigii sanadka ma garan karo sanadkaas ma garan karo maadsanta su'aasha kale aan ku weydiinaya waxay leedahay waxaad sheegtaa jabhaddii ugu horeysay ee Soomaaliya laga asaasay magaceeda iyo taariikhdii la asaasay waa jabhaddii ugu horeysay ee la asaasay SLM bay ahayd tii waqooyi bay ahayd taariikhda la asaasay 86 ilaa 84 baa la asaasay miga hubtaa su'aasha mugdi baa ku jira marka waxaan jeclaan lahaa mar labaad inaad isku daydo waa saan u malaynayo macnaha anuu saan ama taariikhda aan ku eegay ama aan ku fiirsaday saasaan moodiyay maadsantahay saas kugu dayday laakiin kamaadan jawaabin ku soo dhawo su'aasha garaadka dadweynaha ee Dalmar Media walaal waa dhawahay aad ma mahadsantiin magacaaga adoo noogu bilaabay walaal maxaa Faysal Maxamuud ee magacayga sida aragtadaan su'aal ku weydiino waa soo dhaweynaya walaal su'aashan ku weydiinay waxay leedahay waxa noo sheegtaa ururkii ugu horeeyay ee Soomaaliya laga asaasay jabhadaha waqtigeedii magacooda inaa noo sheegtay waqtigii la asaasay walaalay ururka wax u maleyn inuu ahaa kulmis laakiin haddeer waqtigii 1977kii bay ahayd walaal ku soo dhawow barnaamijka su'aalaha garaadka dadweynaha ee Dalmar Media waa ku soo dhawahay magacaaga adoo noogu bilaabay waa Cabdi Ibraahim Bare soo aragtadaan su'aal ku way weydiin kartaa waa caadi su'aashan ku weydiinaya waxay leedahay waxaad noo sheegtaa goorma ayaa la asaasay ururkii ugu horeeyay ama jabhaddii ugu horeysay ee Soomaaliya laga asaasay sanadkiina noo sheegtid baan rabnaa anuu kulleeba sanad waxba kuma sheegi kara sida ila tahay ma aragtay laakiin macnaha qiyaas ahaan intii sino dawladda bilaawtay waxba ku sheegi karaa sanadkan ka rabaa la asaasay sanadkii la asaasayba waa iga maqan tahay sanadkii la asaasayba waa iga maqan tahay adeer ku soo dhawo barnaamijka su'aalaha garaadka dadweynaha Dalmar Media waa ku soo dhawaay waa maanta walaal waa ku dhawaay magacaaga noogu bilaabay magacayga waxa la yiraahdaa Baalac Ismaan Suudi soo aragtadaan su'aal ku waa okay way weydiin ka dhac su'aashan ku weydiinaya waxa weeye waxaad noo sheegtaa markii la asaasay ururkii ugu horeeyay ee laga asaasay Soomaaliya ama jabhaddii ugu horeysay sanadkii la asaasayna noo jabhaddii mise ururkii ma urur ma jabhadda mise urur mise jabhaddii SDF ay ugu horeysay la asaasay 1978 maadsanta walaal ku soo dhawo warbaahinta Dalmar Media ee barnaamijka su'aasha garaadka dadweynaha Dalmar Media waa maadsanta walaal waa ku dhawahay garaad magacaaga adoo noogu bilaabay magacayga Maryan soo aragtadaan su'aal ku weydiino caadi waa warkaa soo dhaweynaya su'aashan ku weydiinaya waxa weeyaan waxaad noo sheegtaa xilligii Siyaad Barre waxaa jiray in loo magacaabay ururka midowga Afrika gudoomiye looga dhigay taariikhdan looga dhigay ma noo sheegi karaa iyo waliba bishii maya ma garanay su'aashaas isku dayaabay maya taa maxaan ku dhahaa taariikh waxaan qiyaaso waxaan u maleynayaa 1974 inay ahayd taariikhdu
laakiin ma sheegi kara sababta iyo walaal ku soo dhawow su'aasha garaadka dadweynaha ee Dalmar Media adoo magacaaga noogu bilaabay magacaygu waa Khadar Axmed Jaamac alxamdulillah Khadar oo soo aragtayna su'aal ku aad iyo aad oo ku faraxsanayn anigoo garowo jooga oo Hargeysa ka yimi inaan garowo ma garanaysa su'aal aad ugu weydiiso aad baan ugu faraxsanahay soo dhawow garowaan ku leeyahay ما شاء الله الحمد لله إلهي ما هاد إسكاله مركل لبعضنا قلنا ميديا أي إسكاله mahadsantahay su'aashan ku weydiinayay waxay leedahay waxaad noo sheegtaa siyaad bare waqtigiisii ururka midowga Afrika gudoomiyaha looga dhigaa marka ma noo sheegi karaa waqtigu ahaa ma taariikhda kulay anigoo imika taraago socda ayuun baa lagu la kulmay ma garanaysaa saa darteed haddii aan qiyaaso qoraalkii ma hayo haddii aan wax qiyaaso waxaan u malaynayaa ururka midowga Afrika gudoomiyaha xilligii looga dhigay waxaan filayaa haddaanu dareenkaygu qaldanayn 1983 ayaan jeclay 1983 ku soo dhawow su'aasha garaadka dadweynaha ee Dalmar Media magacaaga noogu bilaabay waa ku dhawaad walaal Dalmar Media magacayga waa Aasiya adoo codkaaga kor u qaadaya sidee u aragtay su'aal ku weydiin walaal caadi waa welcome waan ka jawaabi karaa wixii nasiibkayga wixii kalena dee waan garan waayay somaho waa mahadsantahay su'aasha u horeysaan ku weydiinaya waxay leedahay jabhadii horeysay ee Soomaaliya laga asaasay waxaad noo sheegtaa taariikhdii la asaasay iyo wali magacii la dhihi jiray waxa uu milaysan jeclaa walaal SOL weeye walaal ku soo dhawow su'aasha garaadka dadweynaha Dalmar Media magacaaga noogu bilaabay ما شاء الله وان دواهي magacaygu waa Khadar Maxamed Xasan soo aragtay su'aal ku weydiin waa ma sha Allah soo dhaweynaya su'aashan ku weydiinaya waxay leedahay waxaad noo sheegtaa jabhadii ugu horeeyay ee Soomaaliya laga asaasay waqtigii la asaasay iyo magacii loo yaqaanay waxaan filayaa inuu SYL ahaa waqtigii magacan garanaya laakiin waqtigii ma hubo waxaan ka sheegay waa been marka